Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Mursal here again. I was discussing yesterday a hot topic in Nephew's Corner. Nephew Hamza, Chief, walk salamai. And I kept hearing failed parents. Now, you know, when I see a comment on layabo or anything similar, the natural reaction would be to look at the person's profile. Look at it. Marka, those opinions I saw saying failed parents, dhaqan celin is bad, dhaqan celin is this, dhaqan celin is that, or negative kusabsan badana, came from people oo dhaqan celin laftigooda u baahan. I mean, islaan 40 jir oo madaxa qaawisto surwaal ku dhagan xiran. You know, she needs dhaqan celin. And oday jeegada xirtay oo Francisca filterkiisa soo gashta maalinta Paris la qarxiyay. You know, dhaqan celin u baahan yahay. Marka, first of all, let me state this. Ana lay dhaqan celiyay. And thanks to my dhaqan celin, I am the man today I am. And I'm living my life, my dream life, to be honest. Because if I didn't come to Africa, I would have never known the life. I would have never known. Look at it. I got shakala in the house. And right now, I got my own business. I got my own shit. I got my own money. And for the first time in my life, I actually dream about building. I dream about achieving. And the reason why is because Somali nimo bali fancy. Somali nimo bali bara. Aql Somali bali gli. Garta intaas horta. Dhaqan celintu waxa loogu talagalay qofka in aql Somali loo soo yeelo. Because dhaqan celin bali yiri lama dhihin diin celin, lama dhihin hagaajin, waxa la yiri dhaqan celin. Because what defines a person? It's their culture. It defines you. Marka, you can be ethnically Somali and not be Somali. And you can be a different country, but if you grow up in Somali, you're going to behave like a Somali. Marka, the reason wax loo dhaqan celiyo waxa weeye when parents actually realize unugan Somalinimadu waa ka tagay. So, you know, when I soo qabta gacanta lagu soo dhigo. Now, there's also the popular misconception because a lot of parents actually do it. Unugooda waxay dhaqan celiyaan markuu xalaabo iskuulka ka haro ama ciyaasnimo bilaabo ama balwad yeesho ama things like that. But to be honest, I know waxaan dhihi lahaa parents oo carruurtooda isdhahayaan yes, they're good kids, kuwaas la dhaqan celiyo. And I'll tell you why. Because haddaa carruurta haddeer la dhaqan celin fiican, yeah, markay hadhowtu wax noqdaan, markay jaamacad gaaraan, shaqaystaan, wax noqdaan, do you think inay dadkaaga wax tari doonaan? No. You know what say u xisaabtami doonaan? Sida caddaanka u xisaabtamaan because dadkaas ku dhex jiraan. Ama madowga. I prefer markas haddaan runta haddaa laga hadlo. But still, they're gonna behave like that. So aakhirka ogow laftigaaga adaa waarida, laftigaaga ama adiga yaanu kugu dhicin ama ayaga yaanu ku dhicin. Like I guarantee you this, caruuraan dhaqankaaga lahayn dadkaaga maaha. Success kasta ha yeeshaan. Because at the end of the day, haddeer waxaa arkaya gabdho talking about placing parents in elderly homes. I mean, me as a Somali, the thought is unfathomable. It doesn't exist in my head to do such a thing. Because I know waxa lagu koriyay, wariyaa waxaan ku dhalaa anina wax tarti. Ceebna maaha. Marka, I know it's a duty upon me to do. But you can also see that carruurtan yaryar hadda soo koraysa already xogaa waa bedelmeen because people like me had kids aan la dhaqan celin. Ma fahamtay? So, ani waa la dhaqan celiyo and a lot like me waa la dhaqan celiyo waa ka soo faa'iideysanay. But there's a lot aan la dhaqan celin because they were apparently doing good. They were in school. They weren't chasing balodi waxaas. And guess what today? Today diintooda ma yaqaanaan dadkaas badanaa. They behave more like Adaan. Waxaa arkaysa naago waaweyn. tinto alqaawina surwaal isku dhagan fitada banaanka la soo dhigana muslim baa lagu leeyahay Somali ah lagu leeyahay what do you mean Somali ata Muslim ata you have no trace of culture in you to define such a thing. Marka, understand this.
dhaqan celin waxaa loo sameeyaa qofka inaa soomaalinimada lagu soo celiyo caqli Soomaali. And for those that hate Somalinimo, well, hate all you want. And for those that understand they are Somali, even if your kid is good, remember markuu aqliyeysanayo qofka meesha ku aqliyeysta aqligiisu leeyahay. So understand that cunugaaga inuu Somali ahaado. If you value being a Somali, you gotta have to send them back to Somalia, and not for a period of 3 months, 5 months, 2 months. Yeah, let's go on holiday to Somalia, because that's valueless. You just wasted money. You need a person to live there, absorb the culture. That takes time, a year or two minimum. You don't have to waste time, but you have to have a minimum set. And don't send them to Badia Markas. Put them in town. Put them with people you trust. Your brothers, your sisters that you know. Not in some freaking boarding school. Marka, that's my 2 cents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.